السلام عليكم. وقتي موضوعنا maanta waa waqti. waa mowduuc miisaaniyadiisu ay weyn tahay, macno weynna ku fadhiya. waxaan isku dayaynaa inaan bidhaamino wax yar oo ka mid ah muhiimadaha uu leeyahay, anagoo ka diyaarinayna muuqaal yar. waayo waqtiga markii laga hadlayo ama mowduucan kuma soo koobmaya keliya muuqaal yar ama saacado. haddaba inta aan bilaabin muuqaalka ka hor, like noo saar janalka, oraahdaada kommentiga inoogu reeb, subscribe nagu dhiirigeli si aan u soo badina muuqaalada noocana insha allah. waqtigu qof kastoo inaga mid ah waxaynu u naqaan inuu yahay keliya saacad iyo daqiiqado, balse sidaa maa way ka duwan tahay arrinka. cabiraadda waqtiga haddaanu dib u jaleecno taariikhdeeda waxay ka soo bilaabatay markii horeba dalka Masar. boqortooyadii hore faraacinada ayaa isticmaali jiray muddo 1500 dhalashadii Nabi Ciise ka hor. halbeega waqtiga waagaas waxa uu ahaa maalinkii inta ay qorax jirto keliya, habeenkii uma xisaabsanayn. markaan ka fiirino hadalkaas, buugaag badan ayaa jirto laga qoray waqtiga, loogana hadlayay muhiimadda waqtiga leeyahay. buugaagta la qoray waxaa ugu caansan uguna muhiimsanaa buug uu qoray khabiir ku takhasusay maadada fiisikiska u dhashay dalka England, lana oran jiray Stephen Hawking sanadii 1988. qeexidda waqtiga waa lagu kala aragti duwan yahay dadkoo idil. qaar ayaa u yaqaan inay tahay xilli shaqo aad ku qabatay oo keliya. dad ayaa u yaqaan maalin barkeed. dad ayaa u yaqaan inay tahay saacado ama muddo yar keliya. waqtiga marka laga hadlayay qeexitaankiisa waxaa la isku raacsan yahay dunida inta badan inuu yahay dhacdo la soo dhaafay, mid hadda la joogo, iyo mid soo socota mustaqbalka. tusaale ahaan waxay u daliishadaan shalay waxaad ahayd talaan, cunug yar barbaar ah, hadda waad weynaatay. beritana waad gaboobi ilaa aakhirkii aad ka dhimato. adduunyadu waa 2 maalin sida aynu ognahay. waa maalinkaad dhalatay ilaa maalinkaad dhimanaysid, balse labadaas maalmood dhexdeeda waxaa ku sugan dhacdooyin iyo marxalado la xiriira waqtiga, kuna salaysan xaalado. anigu ahaan waxaan qabaa waqtigu inuu yahay cimrigaaga. waayo waa maalmo ayaan adduunka joognaa, maalinkiina waa 24 saacadood iyo 1440 daqiiqadood. ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba waqti u gaar ah ayuu nolosha ka siiyey. cidna lagama dhimin waqti, qofna waqti looguma darin. haddaba aayaddan waxayna tusinaysaa ama ka hadlaysaa waqtiga, bal ila fiiriya. ilaa yowmi alwaqti almacluum ayuu ilaahay nagu leeyahay qur-aankiisa. alwaqt ayaa ku jira, ereygaas oo ah noo tilmaamaya in waqtigan qur-aanka lagu sheegay uu yahay wax jira. ka faa'iidaysiga iyo maaraynta waqtigaaga waa mid kaa dhigaysa qof guulaysta, waa mid kaa dhigaysa qof horumara. horumarka shakhsiyadeed waa mid ku xiran kuna salaysan waqti. maaraynta waqtigaaga haddaad meel u heshid waad guulaysan muddo. haddaad aragto dad badan shalay kaa liitay, meel kaa sii hoosaysa joogay, balse maanta kaa sareeya, waxaa qabsaday ama ay samaysteen ayaa ah in ay horumariyeen waqtigooda. haddayba horumarto taa, noloshada hubaal way horumaraysaa. waqtiga ma ahan wax lagu ciyaaro, waqtiga ma ahan wax la iska dhumiyo, ee waa wax la ilaasho, la maarayo. haddaad maaraysid waqtigaaga, una yeeshid jadwal, kana faa'iidaysatid, berito markaad dhimato ama markaad gaboobdo kama shallayn doontid waxa aad soo samaysay. waxa ugu horreeya weydiin doon markaad dhiman waxaa weeye, maxaad ku soo samaysay waqtigaagii adduunya lagu siiyey? waqtigaad gaarka u lahayd maxaad ku soo samaysay? hadhow intaad indhaha taagi lahayd ama aad waxaad sheegtay weyn lahayd, hadda waqtigaada ka faa'iidayso, mid adduun iyo mid aakhiraba.
intaan ugu soo gabagabeynaa muuqaalkan intaan muuqaalkan muuqaal ku xiga aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum